shaqana waa ku jira hawl yarna waxaan rabaa inaan wax ka dhaho midda u horeysa waxa weeyaan dagaal baan ka qayb qaatay dagaalkana uguma qasdin inaan ka qayb qaato laakiin way noqotay sidaan bay ku dhacday marka dagaalkani wuxuu leeyahay 5 gees 4 gees ama 5 gees buu leeyahay wuxuu ku soo koomaday dagaalkii inuu u ekaaday dagaal qabyaaladeed laakiin maysan ahayn dagaal qabyaaladeed ma ahayn wax qabyaalad la dhahana shaqo kuma lahayn saan sheegay dagaalku afaf badan buu leeyahay iyo meelo badan oo laga fiiriyo dagaalkan wuxuu ka dhex dhacay nina saaxiibanahay
ama saaxiibo ahayn iyo ciyaal. waxa ayaga ka dhaxeeyay aan ka gudbo oo aan ka hadlo qaybta aniga ee qusaysa. aniga qaybta qusaysa waxay tahay anoo meel iska fadhiya oo aan waxba kala ogeyn oo waxba la socon, cid ismaagan iyo cid is haysata iyo cid isu danle iyo cid isu jeeda anigoon ka warhaynin ba agteeda dagaal ka dhacay. hadda ka hor baa waxaanoo kala dhaceen dagaallo badan baa agteeda ka dhacay. mid aniga laygu qaaday baa dhacay. dagaal goobtu waxay ahayd ama sideedaba wuxuu ahaa dagaal joogto ah oo soo jireen ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhex dhaca oo dagaal aad u badan oo soo noqnoqday iyo waxyaalo badan oo aan karaahsaday baa jiray. marka midani qayb waxay ka ahayd go'aan aan horey u gaaray oo ahayd ciddii isdagaasha ama ciddii wixii aan u bogi waayo khaladaadkan u bogi waayo inaan intaan soo duubo aan bulshada dhex keeno oo layla arko oo ummaddu ay markaa iyagu ay go'aankeeda iyo maskaxdeeda ay ku gaaraan khalad iyo sax, oo anigu aanan noqon mid aan sheego oo aan fasiro. nin kaste anigu inaan meesha waxa geeyo, nin kastana suu rabo u fasirto. waan duubay anoon dhinacna ka fiirin aana ka fiirin labada qolo is haysata dhinacoodna anigoon ka fiirin baan cajaladii duubay waxaan soo geliyay Facebook. waxaa ka wadaa YouTube-kaan soo geliyey. qof kasta asagaa og dagaalka wuxuu u galay. labada qolo is haysata qof kasta asagaa ogaa dagaalka waxa keenay sababta u galay. khalad iyo saxba asagaa ogaa. hadduu khalad islaha waa khaldan tahay asagaa ogaa, hadduu islaha waa saxsan tahayna asagaa ogaa. khalad iyo saxba qofkii galay dagaalka asagaa galay, anugu ma gelin. qorshahaasna midaan aniga aan ka mas-uul ahaa ma ahayn dagaalka meeshaas ka dhacay. anigu waxaan duubay wixii meesha ka dhacay baan duuba.
waxaana meesha ka soo baxay qof kasta fasiraadiisii way ka duwanaatay midka kale fasiraadiisa marka waxaa noqotay dhinac uusan u socon ama aanan u wadin in loo kaxeeyo wixii oo la geeyo oo markaas sidii loo fasiray iyo sidii ay la noqotay kadib in laygu eedeeyo bay noqotay sheekada haddaan dhaca inaan wada sheego sheeko waxay noqonaysaa aad u dheer oo aan la soo koobi karin bay noqonaysaa haddii aan soo gaabiyana xiise ma yeelanayso iyo muhiimad haddii aan wixii wada sheegana waxaan ka baqayaa inaan khalad hor la galo iyo fasiraad hor leh in la sii fasiro oo meelo kale warkii sii aado okay say xoogaa madadaalo u yeelato waxaa isku dayahayaa in aan si sarbeeban u sheego ama si dulmar ah si messagekii aan ugu talagalay uu u gudbo aanan hadda wax horlana meesha dhib horlan aanan geysan sheekaduna madadaalo u yeelato waxaan isku dayahayaa inaanan magac sheegin wax qof lagu soo saari karana aanan sheegin qof wax lagu samayn karo oo tilmaami kara dadka sheekadan ku lug leh inaanan sheegin baa isku dayahayaa wax lagu tilmaansan karo oo lagu soo saari karo
laakiin kolley sheekada wixii la socda way la socdaan meeshaana kolley dadkii arrintani qusaysay iyo dad ka war hayaba way ka daawadeen meeshaan hadday daawadaan mar kalena arrintaana way fahmi doonaan arrintu cidda ay ka hadlaysa iyo meesha u socoto marka dadweynaha faa'iidada ugu jidhaa waxay tahay middan in wareerka layla arko bulsho weyntana way qusaysaa oo waa lagu waana qaadan karaa arrintan see u sheegaa anigoon qofna ceebayn qofna nin baa jiray dhalinyaro ah oo xoogaa communitiga u ordahayay inuu ciyaalka yaryar caawiyo dantiisa shakhsiyadna ku watay kolleyba ninkaasaan aaminsanahay nin xun ma aha laakiin nin caqli badan ma aha oo ma xisaabtami karo ama ma xisaabtamo ma dhaho waxaan maxaa kaa soo gelaya maxaa kaaga ba'ahaya meelo badan wax kama fiiriyo aniguna waxaan ahay nin jecel inuu bini aadanka iska caawiyo oo aan qofna xasidin xasidnimada ma jecli in la xasidana ma jecli inaan xasidiyana ma jecli
marka hadda ka hor waxaa dhacay bari sii horreysay yarku meel buu ka soo guurahayay marka wuxuu igu yidhi kaale oo guriga ila soo rar buu yidhi dhowr qof buu weydiistay dad badan waa ka diideen aniga iyo waxaan raacay mid kale oo aan la cod ahayn baa raacnay iyo 3 nin oo u malaynaya inay isaga la cod yihiin yaa raacday gurigii baan tagnay gaari weyn buu soo kireystay gaariga weynaa baan la soo rarnay inta ka soo dejinay meel kore alaabtii oo ku soo rafaadnay yaan gaariga u buuxinay marka anugu markaasaan guri soo degay oo alaab iga dhiman tahay asagana markaas wuxuu ka guurahayay guri u deganaa oo alaabo badan u yaaleen buu ka guurahayay wuxuu u guurahayay meel kale u guurahayay guri ka yar gurigu markii hore deganaa wuxuuna ku khasbanaaday inuu alaabti qaar tuuro qaarna bixiyo ninkii waan caawiyey wanaag iyo niyad sami iyo fiicnaan dhinacayga ka timid baan ninkii intaan u raacay oo safar xoogaa jirta uu la galay baan la soo raray gurigiisii iyo alaabtiisii baan la soo raray lacag la'aan baan kula soo raray iyo caawinaad aan raba inaan caawiyo baan kula raray wanaag dhinacayga ka yimid daraaddiis baan kula raray alaabtii markaan dhammaynay iyo wuxuu bixiyey dhowr shay buu bixbixiyey oo yidhi hebelow kan qaado anigoo iga ahayd keliya inaan wax caawiyo intuu igu soo jeestay wuxuu igu yidhi microwave-ka ma rabtaa anigu ma weydiisan isaga igu yidhi microwave-ka ma rabtaa buu igu yidhi haa isii baa idhi waa u baahnay microwave-ka bahallada yaryaroo wax lagu kululaysto oo aan u malaynayo inay joogaan $25 weeye igu yidhi ma rabtaa haa isii baan idhi marka koowaad meel fog baan uga imid gurigiisaan imid alaab baan la raray oo lacag la'aana oo aan waxba ka qaadan aan waxna weydiisan marka saddexaad alaab ma weydiisan asagaa ila soo raadsaday ha ila soo raadsaday haa baan idhi isii baan ku idhi oo markaan aqbalay macnaheeda waxa weeyaan baahi baan muujiyey maxaa la dhahaa sumcaddaydii waxa weeyaan waan waa uga tanaasulay waana ninaan caawinayey marka haa markaa idhi intuu jeestay buu wuxuu raadiyey mid isaga ay ilma adeer yihiin oo isku cod yihiin buu raadiyey kii kale maaha isku cod waxaan u leeyahay nin kaluu siin karay oo aysan isku cod ahayn wuu jooga meesha mid isku cod yihiin buu raadiyey yidhi horaa hoo qaado isagaa marka koowaad ila soo doontay marka labaad waan caawinahayey alaab baan caawinahayay markii horeba anoon waxba ka rabin mar saddexaadkiina waan aqbalay oo waxaa yidhi waan rabaa haa intaasoo dhan intuu ka tegey yuu ii quuri waayey inuu isiiyo oo uu igala bakhaylay ninkii caawinahaya dhammaa buu wuxuu kala bakhaylay in uu isiiyo igala bakhaylay nin buu raadiyey kale oo aan weydiisan buu raadiyey ninkii buu siiyey meeshaas markaan leeyahay waa nin fiican laakiin caqli ma leh wuxuu garan waaye intaasuu garan waaye ninku caawiyey inaad waxaad siisay inaad kala noqoto qof kale u raadisid caqli xumo ilad waa meel ka dhac weeye
waan israacnay gurigaan geynay gurigii kale labaad ugu guurayaan geynay alaabtii aan la dejinay sariirihii wixii baan la xirxirnay waa kasoo tegey ninkii dhammaayaan caawinahayay inuu ii abaalguday iska daayay khalad buu iga galay mar kale waxaa dhacday gaari baan meel dhigtay baraf xun baa da'ay aad u xun baa da'ay laba gaaraa meesha isaga u yaallay markaan meesha imid laba gaaraa u yaallay badeelna wuu haystay uu barafku qodo gaarigana meesha barafka ugu xumaa baa da'ay raganimaan intaan iska baaray yaan gaarigii baan la qoday labadii gaari waa la qoday bannaankaa la keena kaygii baa harsan ma weydiisano ma oran kaygana kaale ila saaray waxaan ku yidhi badeelka keliya ii dhibaan kaa isticmaalee aan gaariga ku saarto adigu iska tag anaana kuu geynaya meesha badeelka keliya ninkii dhammaa oo aan la shaqeeyey waa isla ninkii laftiisii intuu orday iyo wuxuu u geeyey badeelkii niman caddaan u geeyey oo aan u malaynahayo inuu marka hore ka soo qaatay waa ogahay hadday niman caddaana lahaay meeshaas waa loogu cudaari karaa laakiin nimanka caddaankaa saacad uma hayno maysan odhan saacadda iyo saacadda waa inaad noo soo celisid ama laba gaari ka badan ma aad ka saari kartid maysan odhan waqtigu isku dari karay anigana gaarigu igala saari karay maxaa la dhahaa degdeg wax degdega ma jirin taas keliya waxay ku tusinaysaa un inuu qofkaasi yahay qof aan caqli lahayn waa laba khalad maalin kale gaari baa baterigiisu iga dhacay gaari aan lahaa meel yaallay baa baterigiisu iga dhacay ii jaaj garee baan ku idhi fiiladii wax kasta waa haystay maya u kaadi suu ii lahaa waqtigii buu iga ridi iimana jaaj gareen wuu iska tegey markii dambe waa khalad saddexaad laba khalad oo kale oo aanan hadda xasuusan laakiin aan xasuusan doono baa jira iyaguna waa u tirinayaa marka khaladaadkiisa waa sidaas waa qof dhowr goor aa wanaajisay oo inuu abaalkuu siiyo iska daaye ku abaalguda iska daaye khaladka ugu beddelaya marka aniga haddaan intaan asxaan kuu sameeyo oad asxaanka aad iigu beddeshid abaal ka dhac aa iigu beddeshid ma weji kalaad igu leedahay aad berri wax igu weydiisatid taas ma lihid garna uma lihid lagumana samayn karo marka calaa kulli xaal dagaalkaana dhacay wuu ku jiray videogan duubay youtubekan soo geliyey markii hore isaga wuxuu haystay inuu dhinaciisa u qurux badnaan doonto laakiin si kalu markii dambe u arkay wuxuu igu yidhi iga saar videoga iga saar abaallo horaa u galay abaalladii horena wuxuu u arkay inuu iga caqli badan yahay wuu u arkay marka aniga maalin kasta ma iga caqli badnaanaysaa maye igama caqli badnaanaysid marka aniga intaas baan meesha ku lahaa videogaas aan meesha geliyey waxaan keliya oo ku lahaa anigu labada dhinacana lama jirin qolo aan ku wada soconayna ma jirin waxa kan waa isku ogeyn marka ciyaalka ay isdirirhayaan waa ciyaal yaryar oo
aan qolo lahayn qaarna isaga ku cid ahaayeen qaarna aniga igu cid ahaayeen laakiin waxaa badnaaba u malaynayaa kuwa aniga igu cid ah baa badnaa way isqabsadeen arrimahooda ayaga bannaanka isla marayay aniguna mid gooniyaan watay ayaguna mid gooniyay wateen marka sheeko waxaa bilaabatay in lay dhaho qabyaalad baad waxaan u samaysay iyo isku cod baad ahaydeen aniguna mid gooniyaan watay oo ii horreysay oon ayaga shaqo ku lahayn ciyaalka laftooda waxyaalo kale isku haysteen oo aniga aan shaqo igu lahayn oo aan rabin inaan hadda galo sii faahfaahiyo kuwo kalena waxay wateen qorshe kale wateen kuwo kalena oo ciyaalka ahayn oo u malaynahay ciyaalka waxaa jiray kuwo kula dagaalamahayay oo ku haystay sa u badinahay waa fahankaygee haddaanan khaldanayn inay ku haystaan ninkani ordku ku jiro iyo ciyaalkan uu ku dhex jiro ama waxaa u qabanahayo ama waxaa ku qabsanahaye kuwa ku xun baa ku jiray oo arrintan ku lug lahaasaan anigu fahansanahay inaan khaldaanahayna waa laga yaabaa marka waxyaalahaasoo kale oo dhan marka laga soo tago aniga waxaanan raalli ka ahayn oo aanan kula socon kuwa qorshaha saddexaad wata oo ah inay u diidan yihiin ninkani ama inuu horumar sameeyo ama dad caawiyo ama asagu iscaawiyo kuwa diidan kuwaas weeye kuwaan anigu ka soo horjeedo oo ujeeddada hadda videogan aan usoo duubahayo ah inaan u ekaado kuwa ayaga caawinahaya ama la qorsho ah anigu uma eki mana ihi kuwa qorshahaas caawinaha kuwa qorshahaas diidan ninkaasi inuu firfircooni muujiyo ama la dagaalamahaya waxa loo fasiran karo inuu wanaag samaynahayo oo uu wax isku taxallujinaya ama wixii ha hagaageen ama yeysan hagaagin istaxallujintiisa kuwa diidan kuwaas anigu marnaba lama safni kuwaasna weeye istaxallujintiisa kuwa la dagaalamahaya kuwaas weeye kuwa aan ka xumahay ama aan isleeyahay adoo ujeeddadaadii wata goonidahayd amaad la safatay oo iyaga ay maaragtay amaad ayaga caawisay oo si saddexaad ama looga faa'iidaystay waa middaa saddexaad midda anigu aan diidanahay oo aan ka xumahay oo igu kallifaysa inaan ka fakaro inaan ka qayb qaatay ujeeddada saddexaad qolada wadata qoladaas marnaba heshiis lama ihi weligay ma waafaqahayo weligay isku fikrad noqon mayno weligay ma gargaarahayo dadka noocaas ah weligay ma gargaarahayo dadka raba inay la dagaalamaan ama ay ka hor istaagaan dadka firfircoon oo isku dayahaya inay wax qabtaan dadka isku dayahaya inay hor istaagaan dadkaas marnaba garab igama helahayaan marnabana ma taageersani marnaba ma soo dhowaynahayo waqtigay rabaan ha joogaan meeshay rabaan ha joogaan cidday rabaan ha ka dhasheen marnaba dadkaas ma taageersani
dadkaas waa dadka aanan weligay la heshiin doonin, aanan weligayna la heshiin, aanan shaqo isku lahayn. marka waxyaalahaasoo dhan oo soo dhacay, waxa keliya oo aan ka welwelsanahay oo ama aan ka xumahay waxa weeyaan dadkaas, dadka kala dagaalamaya horumarka iyo istaxallujinta iyo firfircoonida dadka kala dagaalamaya amaad garab siisay. intaa keliya weeye waxa i dhibaysa, wax kaloo dhan ima dhibahayaan. markaan leeyahay dagaal baan ka qayb qaatay, waxa weeyaan waa middaas. kamana qayb qaadan, laakiin waxaa laga yaabaa qof la dagaalamaya qof kale firfircoonidiis in annagoo laba meelood ka kala nimid oo laba ujeeddo kala leh inaan isku waddo qaadnay baan taas wey middaan diidanahay. dadkaas bulshada waa in laga qabto. waxaa isku dayayaa bulshada dadkaasoo kale in aysan meel ay ku gabbadaan aysan helin, iyo meel ay ka soo galaan. dad aan diidanahay dhaqankooda oo aanan jeclayn inay igu soo hoos gabbadaan, taas weeye midda welwelka igu haysa. inay dhacday iyo in kale shaki baa iiga jira, laakiin hadday dhacday waa wax aad u xun. intaasaan idinla wadaagahayaa, waa ismaqli doonaa.